maalintii shalay tole ayaa uu dagaal ku dhex maray buuraha gobolka Sanaag cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland iyo jabhad uu hogaaminayo sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo lagu magacaabo Jamaal Baaxad aadaan u wanaagsannahay ma garatay waan gartay aadaydu iska wanaagsan tahay waxaanu joognaa goobtayadii hal dhaagan baan joogaa ma garatay dowladda Soomaalilandna wayna soo weerartay annana waa iska difaacnay ma garatay waa dowlad sheegamaysan oo goleen xadda iyo xaqdarrada in la taageerto ma garatay waxaanu iska qabnaa halkaygaasaan iska difaacaynaa ciidankana ku urursanaynaa ma garatay taliya dagaalkii shalay dhacay ma jirtaa cid wax ku noqotay dhankiina iyo dhanka ciidamada Soomaaliland ciidamada Soomaaliland kama warhayo ciidankayga adigu 3 nin baa wax yara gaadheen walada yihiin alxamdulillah waa wanaagsan caafimaadkooduna waa caafimaad marka ciidanka Soomaaliland ba dagaalka ku soo qaaday mise adoo deegaanka dhawaan yimid ba dagaalka qaaday maya iyaga lagu soo qaaday ma garatay ummadda Soomaaliland baa la tahaabinaya anagu cadaalad darranu diidnay dalka cidda gaarka maamulanayso oo aanu aragnay iyaga doonaya in dadka caburiyaan ma garatay laakiin xukuumadda Soomaaliland inaad wada hadal la furtaan maxay idin diiday ka xukuumadda Soomaaliland wax wada hadal ay uga shaabay dadka xaqoodii hadday hayso Soomaaliland waa jiraysaa dee waana joogaysaa ma garatay waan gartay laakiin hadday doonayso inay xaq darrada ku maamusho oo dowlad ku ahaato wax shaqaynaya ma aha dadka qaar waxay leeyihiin taliya Jamaalow madaxweynaha Puntland socdaalkiisii Sanaag ayaa ka dambeysay inaad aad u deegaanadan timaado qorshe Puntland laga soo abaabulay weeyaan oo lagu wiiqaayo qarannimada Soomaaliland bal wararka saasa maxaad seed u aragtaa waxaasi waxba kama jiraan Puntland waa walaalahayo isku degaan baanu nahay saldhig bayna siisay anigu dalkaygii baan imi madaxweynuhuna hadduu badan yimi isaga ayagiisa u yimi ma garat anagu waxaanu ka qarno jooga iyo ka ayaga halka jooga iyo ka gobolada Soomaaliland ku sug cadaalad darradu hayso waad ogtahay adigu inaan dalka Soomaaliland wax la wada leeyahay aan ka jirin ma garat wasiiramiyi kuwaasi kuwa isaga matelayo markay saxaafadda usoo baxaan dadka caayaya weeye inay dadka matelaan uma haystaan kuwaasi ma garatay marka waxa weeyaan anagu dee haddii xaqii dalka lagu lahaa Soomaaliland waad ogtaa waa dowlad la wada leeyahay ma garat oo dadku beelaha Soomaaliland beel kasta ay ku midowday Soomaaliland ma garatay laba beelood baa Soomaaliland imika u heshiiyey jeegaan baa la yidhaahdaa magacan Soomaaliland la yidhaahdaa waa magac lunsan oo aan halkiisii joogin ma garatay xaqii Soomaaliland haddii la helayo oo waxaan kula wixii dadku wada lahaa la wada helayo oo dastuurka Soomaaliland dadku dib u eegayaan waxa weeye de wax ma jireen ma garatay inta taa la helayo waxay ka horeeyeen waxa weeye waxaan idiin sheegaynaa waxay wax wada hadal inaan cidna la yeelan doonin aniga iyo ciidankayga sidoo kale waxaan weydiiyey taliya Jamaal Baaxad in jabhadiisa ay ku biireen ciidamo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanu igu jawaabay waxay ku soo biiray 67 askari ma garatay waan gartay ciidanka qaranka waan gartay ka AGB ka tirsanaa ciidanka ku soo biiray waxay ka tirsanayeen guutada 15 iyo guutada shanaad ma jira inaad iskhilaafteen adiga taliya caare oo hore ciidamada qaranka isaguna uga goostay waxba kama jiraan taliyahaygii weeye ciidankaygii weeye habeen hore waanu 24 saac xiriir baa naga dhaxaya ciidanku wuu imanayaa gobol kasta Soomaaliland ka mida dad walba joogtaa way ogtahay aniga caarina waxba khilaafaadi naga dhaxay ciidankuna meel walba u joogo anaguna saldhigayga labaad aan furannay kuwaan howl gallay wadana hawshayada Soomaaliland wax la yidhaahdaa dadka waxay geliyaan propaganda anagu waxaa khilaaf naga dhaxaya ninka ma jirto xaaladdeedana meel wanaagsan bay noo maraysa laakiin taliya dadka qaar waxay leeyihiin Jamaal iyo caaraba xilal bay doonayaan hadday xilal xukuumadda madaxweyne bixiso ama dialogue la furto wada hadal iyo dood la furto way yeelayaan maanta haddii xil lagu siiyo ama ciidan ama siyaasi ma qaadanaysaa oo ma ka tanaasuleysaa fikirkaaga jabhad maya waxa weeye aniga iyo caaraba xilal wanaagsan baanu ka haynay dowladda waad ogtahay rag saraakiil abaanu ahayn waxa weeye laakiin xaqii dadka shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogaan dad kasta yihiin oo xaqooda ka maqan yihiin baan diidnay ilaa xaqii dadka la helo anagu rag ishimanaya iyo rag xidoo gaar qaadanayo midna nahay mudana taliya mowqifkaagu waa maxay mowqifkaygu waxa weeye ilaa xaqa iyo cadaaladda dalka la helayo inaan banaankaa joogno ugu dambeyn haddii la waayo dee xal haddii la waayo inaanu gacan ka hadli doono insha allahu tacaala dadka qaar waxay leeyihiin Jamaal iyo caaraba ciidanka qaranka lacag ka dhaceen lacagtaasi la goosteen si aan lacagta loo weydiinin ayay jabhado u samaysteen taa maxaad ka oran lahayd adiga laftiyaadaad ka warhayso dalkaad ka warhayso anagu waxaanu dhacnay ma jirto walaa gaadidaanu dhacnay walaa lacagaanu dhacnay waxa weeyaan cadaalad darradaas saamaysadanu ka baxnay waxaanu kaga baxnayna caalamkao dhan baa laga ogyahay ummadoo dhan baa ma garatay waan gartay laakiin ambalaaskii degmada xiis ee caafimaadka
jabhadiina loo keenay waa maxay ujeedada ka dambeysay halkan taa shacabka dadka dulmiga diidan gobolka sana ku dhaqan baa keenay waayo xagga qofka biniaadamka shacabka ahi nin walba oo wuxuu diidayo halku wax ka soo qabanayo sigaa og xaaladiisana mid loo dhamaamay ahayn dadkoo dhan baa ogaa waxa weeye dalku jabhad hadday ka bilaabato wax badan baa ka dhici doona intaa iyo ka badan baa ka dhici doona laakiin taliya gaariga ambalaaska ah hooyada umusha ah iyo qofka wax gaadhaan ayaa lagu badbaadinaya miyaan ahayn inaad dib ugu soo celisaan gacanta shacabka degmada Xiis way naga hayaan gaarigii waanu siinay way qaateen shalay dagaalkii dhex maray bay ku qaateen midda kale meel walba umulya ambalaasi meel walba umul baa dee joogta waxa weeye gaari la wada leeyahay buu ahaa gaari meel gaari lahayd buu ahayn waxa weeye gaari dawladeed buu ahaa cid gaari ay sheegatana xaq looma lahayn gaarigina waa la hayaa waxa weeye dawladdu way haysataa laakiin waxaan kuu sheegayaa xaaladdu intaa waa kasii badan doontaa insha allahu tacaala aad baa kuu salaamaya aad baad mahadsantay taliya Jamaal Baaxad dadka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Ciise Axmed Yuusuf Xawar iyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani oo khadka telefoonka kula xidhay ayaan iiga jawaabin moobiladooda gacanta Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa.